السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا لما أنا خيارتي أنت channel كحران أنت عصب دمانتك سؤال هذا وأنا واحد محمود أحمد. ما أنت مقالك ما حكى هل دونا برنامج مهمة هو برنامج هذا شركة جوجل كمذا برنامج كان وبرنامج كله يقانو جوجل كيب أما كيب نوتس لو يقانو برنامج كحلو استعماله سيد أتحسو صحاجة وحيابه قرالة صفوض أو قرته to-do list ahaan wuxuu kamid yahay barnaamijyada ugu fiican waxyaabaha isleeyahay uu ugu fiican yahay waxay tahay in uu qorto marka hore ay leedahay shirkaddan Google ee Gmail-ka uu kugu shaqeynay kadib lana shaqeyn karo waxyaabaha kale ee shirkadda Google bixiso barnaamijka waxaan isticmaalay anigu muddo dheer aan isticmaalay taqriiban ama in ku dhow 4 sano wax ku dhow aan isticmaalay haddayna ka badnaynba waa barnaamijyada notes-ka fudud ugu fiican way jiraan barnaamijyo kaga fiican notes-ka ballaaran ee project-yada iyo waxyaabaha oo barnaamij wax ka fiican waxa jira la yiraahdo Notion laakiin barnaamijkan waxa isleeyahay notes-ka fudud oo dhan isaga ayaa u fiican haddaba barnaamijkan marka hore si aad u soo dejiso waa inaad Play Store-kaaga tagto waxa ku qoraysaa keep notes ayaa ku qoraysaa keep notes marka ku qorto Google keep notes ayaa hore kaaga imanaya hadda install baa leedahay inuu idegsan yahay open baa soo baxaysa open marka tiraahdo waxa sameynaysaa safxadan ayaa ku furmaysa waa safxada notes-ka ku qoran hadda notes-ka ayaan hore u sameeyay note cusub waxa sameynaysaa inaad ku darto marka rabto calaamada plus ayaa taabanaysaa notes-ka ku soo daraysaa noocyadooda si fudud xagga hoose uga soo dari kartaa meesha calaamada saxda ay saaran tahay meesha waa listo wuxuu ku siinayaa note noocaas oo kala ah midaan marka dukaameysi oo kale u baxayso note waxyaabaha aad soo iibsan lahayd oo kale ama howlo aad qaban lahayd oo kale notes noocaas ku siinayaa marka mid hesho kale ama mid aad sameysana calaamada sax ayaa saaraysaa hoose ay kugu dagaysaa qaab noocaas oo sameyn kartaa waxa kale oo sameyn kartaa note sawir ah hadii aad isticmaasho kale iPad ama waxyaabahan qalabyada cusub ee wax lagu sawiro kala haysato oo note sawir ah u baahanto kale calaamada labaad ayaad yana new drawing note ayaa ku dhufanaysaa xagga ayaa ku sawiraysaa wixii aad sawiri lahayd oo kale mesela oo kale note ka sawirkaana waa sameyn kartaa note cod duubid ah oo codkaaga inta hadashana waa duubi kartaa laakiin dabcan English-ka un buu fahmayaa Google-ka codka Google maxaa la sound recognition ay isticmaalayaan hadda ma isticmaali karno sababtoo ah telefoonka aan wax ku duubaynaa waxa kale oo sameyn kartaa adoo taa isticmaalaya badhankaana waxaad ku soo dari kartaa note sawir ah sida maxaa la raada taas oo kale sawirkaas oo kale ayaa ku soo daraysaa si guud noocyada notes-ka waa noocyada afarta nooc weeye codka iyo checkbox-ka iyo sawirista dhammaan xagan ayaan ku sameeyay midda sawirka waa taasa waxa kale oo isku dari kartaa note qoraal oo kale midaan sawirada ku saabsan oo kale waa soo gelin kartaa hadii aad sawir arqaado kale ay jiraan waxa inta dheer oo xagan aan rabaa inaan ku tuso inteena computer-ka u wareegin qaabka muuqaalka notes-ka aad rabto inay sida afargeeska ay sida isu garab yaalaan oo kale xagga ayaa taabanaysaa meesha afargeeska meesha kore meesha ayaa ku dhufanaysaa multi column marka ka dhigto way isgarab galayaan marka aad tiraahdo ha isu daba galaan sidaas ay isu daba galaan qaabkaasna waa noocaas waxa kale oo muhiim ah in aan xagan ogaano notes-ka ay leeyihiin in aad sameyn karto note reminder wadata oo ah in ay ku xasuusiso ama waqti ahaan lagu xasuusiyo ama meel ahaan oo xagga ayaa ku dhufanaysaa wuxuu ku leeyahay add reminder waqti add reminder ay ku leeyahay waqtiga aad rabto xagga gelinaysaa hadii aad rabto mesela meel marka tagto in kugu soo rido ku xasuusiyana place ayaa taabanaysaa home guriga oo kala haduu ku save gareyn ku soo saaraya hadii kalena edit location ayaa leedahay kadibna xagga ayaa gelinaysaa mesela oo kale suuq oo kale marka rabto suuqa markaan tago kale Uthayim Mall oo kale marka tago ayaa leedahay xasuusi marka meesha tagto ayuu ku xasuusinayaa note-kana inta marka laga soo tago waxa iyana aad sameyn kartaa oo note-ka marka aad qorato
kalaro ayaa kala samayn kartaa oo si fudud note-ka markaa ku dhufato xagga ayaad ku dhufanaysaa sawirada xagga ayaa kalarada ka dooranaysaa calaamada waxaa kaloo samayn kartaa xagga delete ayaad dhihi kartaa waa masixi kartaa waad diri kartaa qof baa u diri kartaa copy ayaa ka samayn kartaa meeshan waxaa kaloo ku jira wax kaloo muhiim ah oo loo yaqaano collaborator oo ah haddii aad مثلا oo kale dhowr qof oo kale aad note kaga wada shaqeynaysaan oo kale qof labaad uu kula hagaajin karaa xaggaas ayaa kaga soo daraysaa aad collaborator kadibna waxaa gelinaysaa emailka qofka aad rabto inuu kula hagaajiyo intaa marka laga soo tago waxa kaloo jira uu ku leeyahay maxaa la raacdaa waxa uu leeyahay keep note wax la yiraahdo wuxuu leeyahay labels ama category oo ah noteska in aad مثلا oo kale mid aad jaamacad oo kale dhigato kale noteska ku saabsan oo kale meel ku darto Soomaaliga iyo suugaanta oo kale YouTube videos oo kale hadda YouTube videos markaan ku dhufto waxa ay soo baxaysaa videoga ama note-ka aan maanta videogan kaga hadlayno sida ayaa label cusub marka rabto inaad sameyso waxaad soo furaysaa xagga calaamada saddexda saaran create new label ayaa leedahay مثلا oo kale hadda waxaan leenahay muuqaalada labelka noteska ku saabsan muuqaalada xagga ayaad ka sameynaysaa edit marka rabto calaamada qalinka ku garab yaalaad ku qoraysaa kadibna waad edit garanaysaa hadda rabto inaad masaxdana calaamada kale ku salada ku agtaala ayaad ku dhufanaysaa marka inta sameyso labelka sidaas ay kuugu degsan yahay مثلا oo kale calaamada markaan rabo inaan labelki ku daro waxaan leeyahay labels note kan oo kale aan rabaa inaan markaan rabo note kaas oo kale inaan label u sameeyo waxaan soo furayaa saddexda dhibcood waxaan leeyahay label kadibna waxaan leeyahay مثلا oo kale muuqaalada geli kadib waxa arkaysaa qaybta muuqaalada ay ku jirtaa markaan tagno qaybta muuqaalada waxa arkaysaa calaamadii inay ku jirto sidaas la eg waxaan sameey karnaa noteska aan ku noqono waxaan sameey karnaa sidaas la eg inaan noteska qaar archive u dirno مثلا oo kale taasoo kale hadii aan rabo inaan archive gareeyo waxaan leeyahay calaamada dhinaca ku taala ayaan ku dhufanayaa sida ay ku leeyahay not archived markuu ka yiraahdo archive-ka marka tagtana sida ay kugu soo baxaysaa sidaas ay ugu isticmaali kartaa mobile-ka hadii aad rabto مثلا in aad isla noteska kale ku isticmaasho computer-kana waxa si fudud tagaysaa computer-kaaga waxaad ku qoraysaa meesha waxaad ku qoraysaa keep.google.com waxa arkaysaa inuu ku geynayo qaybta noteska hadda account kala ay furan account-keygii aan ku sameynay baan tagayaa waxa arkaysaa in uu ku soo galiyay dhammaan noteskii ku qornaa ay ku soo galiyay arkaysaa labelska ay wataan wax walbana ay ku jiraan archive-tii aan archive gareynay ay ku jirto waxa muhiim ah in xagan aan ku daro in aan sameey karno hadii aan rabno inaan colorka madow kale u bedelno in xaga si u bedeli karno si fudud intaan settings ka tagno ayaan waxaan leenahay enable dark mode ayaa leedahay sida ay kaaga dhigayaa madow cadaankeenii aan ku celino dhammaan wixii aan telefoon ku sharaxnayn xagan sidaas la eg ayaa ku sameyn kartaa marka note cusub inaad sameyso rabto xaga take note ayaad qoraysaa sidoo kale reminder inaad ka dhigto marka rabto xaga ayaa gelinaysaa ama waqti ama meel inaad ku xidho qof marka inaad ku soo darto rabto xagaana waxaad ku isticmaali kartaa kalarada note color ayaa u sameyn kartaa archive-intan xaga way waxaan rabaa xagan inaan ku daro note kan oo kale hadii aad rabto in aad copy ka sameyso ama Google Documents u dirto waxaad si fudud tagaysaa xaga more ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad leedahay copy to Google Docs si fudud ay kugu copy gareynaya document ahaan isla markii waxa arkaysaa inuu ku sameynayo document ee kugu qoran tahay note-kii iyo macal sawiradeedii iyagoo diyaarsan ayuu saa kugu sameynaya sidaas la eg ayaa Google Keep meel walba ugu isticmaali kartaa calendarka marka joogto kale way ku soo baxaysaa dhammaan programmada Google ko dhan marka isticmaalayso sida ay kugu soo baxaysaa waxa sida si fudud u sameyn kartaa
labels haddaad rabto inaad hagaajisana sidoo kale unbaad edit labels xaggaa leedahay xaggaa baad ku dhufanaysaa calaamada si aad u hagaajiso kale kadib qoraalka wax ka bedelaysa haddaa inaad masaxda rabtana xaggaa ayaa ku dhufanaysaa kadibna dhan ayaad leedahay markaad rabto inaad ku darto mid kamid ah label cusub aa u samaysana waxaad ku dhufanaysaa un xaggaa kadibna waxaad leedahay add a label kadibna waxaad u taabanaysaa mid cusub haddaad rabto xaggaa baa kaga daraysaa kuwii hore kuu samaysnaa haddaad category inaad ku darta rabtana xaggaa ayaad kaga daraysaa sidaas la eg haddii aad wax kusoo kordhiso qaybta computerka ama qaybta telefoonkaba synchronized way ama wax loo yaqaan ama way isla shaqeynayaan xaggan wixii ka soo kordha xaggan hore ka galaysaa sidoo kale xaggan wixii ka soo kordhana xagga hore iskaga bedelaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan waa muhiim in qofka macnaha isticmaalo noteska fikradaha cusub ee kusoo dhaca dhammaan wax walba kusoo dhaca si uu si fudud wax ugu qori karo waqtigiisa ugu ilaalin karo waxa uu sameynayo howlaha sugaya isbuuca wax walba uu ku sameyn karo haddii aad taqaano program ka fiican nala wadaag oo aan ahayn kaan sheegnay Notion haddii aad isticmaashana tips kale ama meelo aan ka tagnay oo kale haddii ay jiraan qaybta commenteska nagula wadaag intaan muuqaalka lamida isku arki doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh